waa muuqaallo laga helay kaamiradaha qarsoon ee waxduuba ee loo yaqaan CCTV cameras waana dilkii arxan darrada ahaa ee Jamaal al-Khashoggi waa duhurnimo 2 bishii Oktoobar 1:14 waxaa soo cagadhigtay qunsuliyadda wariye Jamaal Khashoggi ku dhawaad 2 saacadood kadib waxaa qunsuliyadda ka baxay 2 baabuur oo lagu qiyaasay kuwa lagu wado meydka wariye Jamaal Khashoggi Allahu naxariiste diibaanu noqon daqiiqad ka hor isla 2 baabuur ayaa la arkaa muuqaalka gudihiisa oo ku hakanaya iridda hore safaaradda waxaadna moodaa inay ahaayeen kuwa hubsanaya inay ku habboon tahay xilligii ay bixi lahaayeen wada shawritaan dheer isku laabasho badan kadib way gudbeen tanna waa marwadiisii oo iyadu weli ka dhursugaysa xilliga uu soo bixi doono ilaahow nina waxba ogeyna cadaabe konton daqiiqo ilaa 8:11 daqiiqo isla 2 bishan Oktoobar waxaa ka soo hormuuqday garoonka 13 ruux oo lagu wada inay ahaayeen kuwii fuliyay dilka wariyaha ugu dambeyn 9kii fiidnimo diyaaraddii way kacday والله